wararka ka imanaya dalkaasi Yemen ayaa sheegaya in dagaal ba'ani ka socdo gobolka Tacis halkaasi oo ay iskaga hor yimaadeen ciidamada dawladda taagta daran ee uu hogaamiyay madaxweyne Cabdulrabbi Mansuur Hadi iyo xuutiyiinta iyagu sida baan hubaysan ee gacanta ka helaya Iiraan sida uu sheegay afhayeenka dawladda la aqoonsan yahay ee Yemen Cabdulbaasit al-Bahar ayaa sheegay inay dileen 6 ka mid ah xuutiyiinta dagaalkan oo ahaa dagaal aad u xun isla markaana la soo adeegsado barnaamijyadiisa kala duwan ayay isku haleeleen labada dhinac dhanka kalena gudoomiyaha jabhadda xuutiyiinta dalka Yemen Abdulmalik al-Huti ayaa nidar ku maray inuu baabin doono waxa uu ku tilmaamay dawladda macmalka ee dabada ay ka riixayaan wadamada Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya dhanka kalena kooxda la baxday STC oo iyagu sheegtay 2 bilood ka hor inay ka go'een dalka Yemen intiisa kale ayaa laga qabsaday dhul ballaaran oo ku yaala koonfurta dalka Yemen suxufiyiin wararka Oodweyne Media Hargeysa